xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay sii deysay 14 maxbuus oo maamul goboleedka Puntland lagaga qabtay dagaalkii ku dhex maray Soomaaliland iyo Puntland deegaanka Tukarraqi gobolka Sool. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo la hadlayay warbaahinta ayaa u sheegay idaacadda VOA in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu cafis u fidiyay 14 maxbuus taasoo afhayeenku ku tilmaamay in ay nabadgelyada Soomaaliland danaynayso. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xuskiisa sanad guurada 8 ee dib u soo noqoshada madaxbannaanida Soomaaliland 18 May wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliland mar walba nabad buuxda u hayso cid kasta sidaa awgeedna sii deynayso maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka Tukarraqi maxaabiistaas oo ay tiradoodu dhammayd 14 maxbuus. Maran weydiiyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland inay jiraan gacmo shisheeye oo cadaadis ku saaray Soomaaliland in ay sii deyso maxaabiista ay ka haysay Puntland iyo in kale ayaa waxa uu ku jawaabay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo nabadgelyada caan ku ah beesha caalamka iyo mandaqada geeska Afrikana ay ku majiiratay guud ahaana laga marakacay sida ay Soomaaliland nabadgelyo taama ay dalkeeda ugu xasilisay ayaanu anagoo nabadgelyada ahmiyadda ay leedahay iyo tixgelinta ay leedahay muujinayna xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi go'aansatay in la sii daayo maxaabiistaas nabadgelyadana wax kasta oo ay gasho Soomaaliland waxa ka go'an inay hirgeliso. waxa kale oo aan weydiiyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland inay jiraan maxaabiis ay Soomaaliland ka hayso maamul goboleedka Puntland waxaanu sheegay 2 maxbuus ayay maamul goboleedka Soomaaliya ay Puntland ay hayeen Soomaaliland 14 maxbuus buu hayay 14kii maxbuus aanu haynayna madaxweynuhu wuxuu go'aamiyay in la sii daayo. rajaynaysan in la soo daayo 2 maxbuus anagu xukuumadda Soomaaliland iyadoo nabadgelyada tixgelinaysa ayay go'aankan qaadatay maxaabiistiina way sii deysay nabadgelyo ayay Soomaaliland ay diyaar u la tahay dawladaha